waxaan dhahaa hooyo qur-aanka waa fiican ku noqo markaa aa dhammayso naqdiinka aan kaa bixinaa mayuu dhahaa hooyo waa iga bixinay waaye waxaan dhahaa macalinkiiaan bal la hadli doonaaye bal sii dhigo maya iga bixiyo dhaa dhowr maroo babaxay waa soo qabanayay habeenuu soo xirtay guriga habriirtiisoo aasta 6 saac habeennimo. gabadhan Soomaaliyeed markii hore waxay noogu timid baafin wiil ayada ay dhashay oo 16 jir ah oo ay sheegtay inuu Yemen yahay oo xogaa dugsigii quraanka lagu celceliyay kana xanaaqay guriga ka tagay laakiin sheekada dhexdeeda waxaan ka helnay sheeko cajiiba waana in wiilka aabii xitaa aysan nolol geeri ku ogeyn Sacuudiga ugu dambeysay wiilka aabiis ma haysaba qaadir xuseen doo maqlaa waxaan ka codsanahay inuu isoof baqo fiiriyo loo tasbac kalaami Allah yaqalik waladak mawjuud sidaa daraadeed waa iskugu darna baafinta idinkana garab siiya waa hooyo muddo badan shaqaynaysay xogaa dhigay ka culusta wuxuu daaraynaa waxa codsanayaa marka anigana si wanaagsan oo la hadli doonaa bal idinkana muuqaalka u sheer gareeya biidnillah alkariim waa dareemi kartiin hooyo laba wiil oo dhashay mid kamid uu maqan yahay wiilka maqana garab iyo cidil raadinaysa jirin oo aabiisna maqan yahay aaba dadkiisana aysan aqoonin ogeysiis isbitaalka taqoosiga ah muqdisho waxaa ku soo biiray doctor tamaam alhamwe qabiilku taqoosiga qallimada neerfaha burooyinka maskaxda iyo lafdhabarta inta uu joogay waxa uu fuliyay kiisas badan oo guuleystay sidoo kale waxaa isbitaalka ku soo biiray doctor basil oo ah qabiilku taqoosiga qallimada afka wajiga dhaamanka iyo dhaawacyada shilalka nagu soo booqo tawfiiq miisaanka dhuxusha agtiisa muqdisho specialist hospital daryeel iyo khibradaas ku halayn karto. salaamullaahi calaykum saaxiib yaal soo dhawaada waa baafin waa baadigoob waa ilintir waa cabdilcasiis ilaahay waxaan ka codsanayaa ummad Soomaaliyeed maalmaha waxba maqlaaye qalbigooda inuu isku soo hadeeyo waxa waa Soomaalida dalka ay joogaan iyo dibadda joogaan waa kala tageen laakiin qalbiyadana Allah isku soo celiyo qabiilkana Allah naga saaro inta waxaan jeclaan lahaa marka inaan idin sheego ka cumrayntii waalidiintu way socotaa halkii waalid 300 labada waalid 100 aan ku reebana discount jiro waa 500 waxaan ku ballan qaadaynaa cumrada si sax ah inay u dhacdo culimo diin la yaqaanana ay fuliyaan isla markaana anaga kor joogteen aynu kugu sameeyno oo muuqaal laga soo duubo haday noqon lahayd xirashadii masjid Aisha iyo haday noqon lahayd xaramka oo markaasi dawaafkii sacyigii Safa iyo Marwa iyo wax walba wakiilka ahay Ali geedi ilaahay cumrada waa aqbalo waxaan ugu soo xiray shirkadda Anwar waxaan ugu soo xiray ninka leeyahay Muxsan Abdulcasiis Riyali waxaad u qabato waalidka caruurtaada birka sugaysaa mahadsanid soo dhawow walaashay marka hore magacaaga oo dhammaystiran iyo halkaa naga soo booqatay nuurto maxamed xasan intee ka timid kaaraan ka timid yaa ka maqan oo barnaamijka baafinta u timid wiilkayga magaciis maxamed abduqaadir xuseen meeqa sano kaa maqan yahay wuxuu iga maqan yahay 19 beri 19 maalmood 19 beri dugsidiidu ahaa meeqa sano jir waa 16 sano jiraa 16 jir waa 16 sano jiraa 16 sano jir 16 jir waa aabiis buu la socdaa aabiis waxaan ku soo dhalay dalka Sacuudi Carabiya hadda dhow soo yaraan keenay ana gadaal laga keenay aabiisina ma haayo ima joogo aabiis soo jira aabiis Sacuudi Carabiya ku ogaa Sacuudi ku ogaa waayahay wiilkaaga markii la waayay maxaa sameyseen wallahi waa raadiyay waa baxay meel kastaan ka raadiyay wiilashay iyo dhashtay walaalahay kulli baafintan gelinay wax noo baafi waaweyn ilaa adiga aan ku imaano oo Cabdicasiis ahaan aan ku soo raadino ana waa xanuunsanahay luga ay xanuunaysay gabadheedan ku imaaday waxa la dhahaa hooyo hala keeno saasan kugu imaaday markii waalidka la keeno baafinta ay aad u fiican tahay waayahay hadda wiilkaaga dugsiga markuu hore saan muu sameeyay quraanka 114 dhameeyay iskoolna uu dhiganayay 114 dhameeyay markaas wuxuu dhahay miyaha aniga igu celinin naqtiinka waxaan dhahay quraanka waa fiican ku noqo markaa aa dhammayso naqdiinka aan kaa bixinaa mayuu dhahaa hooyo waa iga bixinay waaye waxaan dhahaa macalinkiiaan bal la hadli doonaaye bal sii dhigo maya iga bixiyo dhaa dhowr maroo babaxay waa soo qabanayay habeenuu soo xirtay guriga habriirtiisoo aasta 6 saac habeennimo waa ka imaaday markii noogu dubar dambeys waa keenay waxaan dhahaa hooyo saama aqli ma ahane joog hooyo macaan oo ku duceynaa mayuu dhahaa hooyo macaan aniga dugsiga wax kaloo cilad kalaba qabo waa iska shaqaysanaa laakiin dugsiga iga bixi muxuu ka shaqeynayay garaasha rabaa u dhahay aan ka shaqeynaa xataa
aniga iskuulkayga iska dhigana garaashna waa dhiganaa laakiin hadda dugsigayga bixi waa yartaan dhaho qur-aanka dhamee qur-aanka lebis wax kaloo ciladoo kaloo jirta malahan 16 jir qof lumi kara ma marka maxaa u baafinaa qof weyn waaye inuu yimaado maxaa sugaysa yaraan waaye waa ii yaryahay ilmihii oo igu wada yaryahay ayaga dhan ilmo badanna ma ahan bo 4 leen ba haystaa 2 waa ila joogtaa gabdhaha waa iga maqan yahay halkan kalena waaba ila jooga ma asigi bis yaraanna uu ii yahay hooyo ma laga weynaadaa okay marka sawirkiisa ma saarayno yah sawirkiisa ma baahinayno sawirkiisa taarabta waa baahi kartaa maya qof maaragtay qaangaar oo 16 jira ceebay ku noqonaysa sawirkiisa markay dhalinyarada arkaan hadda laakiin muuqaalkaaga waaba dhignaba anakaaba Facebook dhignay dhib mala anaga ma dhigayno haddii uu muuqaalkaaga arko saa kula soo xidhiidhayo ma waxaan diidayn inuu beri sii ceebsado uu kaasii xumaado mafahamta waxaa laga xanaaq inuu ku maqan yahay marka wax barbelan oo la dhahay male hooy kac sabdiyeed anaa dugsiga u kacshay kacaan dhaha hooy dugsiga aaso wax kaloo hadda maanta aan xanaaq kale uu ku maqan yahay ma jirto iyo cadaadis kale ma jirto aadan ku fahmay caruur badanaa jirto dugsiga cararto sax amba diido marka la baafiyana dib baa la iskaga helaa wiilkaaga yah wax kale oo idin dhex mara ma jiraan wax kaloo dhex mara malaan ilaa dugsiga waxaa ahaynin qaar dugsigaas wax kaloo dhex mara malaan saaxiibadiis ma weydiisay saaxiibadiis waa weydiiyey ma arkinay dheheen xaafadda waa laga waayay waa la raadiyey shalay ugu dambeysay qashqubkaan ka raadinayay oo waxaa is dhahay ilmaha iska qashmaysto ama raacay waa ka soo waayay meel kasta waa galay badda waa aastay ama badda qaaday waa is dhahay xataa waa ka soo waayay waxaan ka codsanaynaa inuu ku dhibin maadaama wiis aad tahay inuu ku xanuunjin oo ku dhibinaan ka codsanaynaa oo ku yimaado qof kastoo aragta wiilkaaga maxaa ka codsan lahayd waxaa ka codsan lahaa inay ii sheegaan sawirkiisana dil dhigana barbaleen ma lahan oo ilaan waa la arkaa soo maahan ninkaa nin baxa waaye qaybta hore muuqaalka familka saarayna qaybta hore muuqaalka saaraynaa sawirka waayahay alaasaa kaa codsanaa sawirkana ii saarto oo dila helan laysoo wargeliyo di islaan oo yani inta ka maqanna allah u sahlo saaxiibadiis ma weydiisay saaxiibadiis waa wareysta ma arkani dheheen mahaya mar kale magaciisa noogu celi wiilkaaga yah magaciisa noogu celi magaciisa maxamed cabdiqaadir xuseen naanes muu lahaa maxamed leedha maxamedow leedhahayn maxamedow qabiilkiisi waa yah qabiilkiisi waa qabiilkiisi yeman waaye anaa waxaa hooyadiis abgaala ahay asi yemani waaye yeman waase waayahay waxaa rajeynaya dadka soomaaliyeed garab inay ku siiyaan wiilkaagina la helo lambar lagaa soo cano sheeg waa u qoray haddana kuu sheegaa furaha 3 96 85 97 lambarkaas adiga iskale nambarkaas anaa leh magacyo kugu qoran yah magacaaga nuurta maxamed xasan nuurta lambarkaas lagaa soo wacaa marka qaar waxaa ku soo wacaya dad been ku sheegaayo wiilkaaga intuu joogaa lacag soo dir mootaan soo saarayn ayaa lagu sirin muuqaal iga tusiya dheh ka taxadiriyaa waayahay waxaa rajeynaya wiilkaaga in la helo waa rajeynaya insha allah waa gartay barnaamijka baafinta adimaa daawada ma lagu sheegay se waa daawadaa markastaa ku daawadaa waa kula socdaa xataa daawa iska rabi laha xataa udoogiis la raadiyo oo inacaan sacuudi carabiyan ku ogaayay hadii la raadiyo xataa waa iska rabaa aabiis magaciis aabiisa cabdiqaadir maxamed xuseen aa la dhahaa ya cabdiqaadir xuseen axmed guurkiin intuu ka dhacay goorkeen wuxuu ka dhacay yemen intuu kugu ogaa asiga waa kala tagnay markaa kala tagaysa inta joogtay anta joogtaa sacuudi carabi sacuudi carabiyan joogay kasaa kala tagnay sax kadib ma xiriirteen marka yah ma iswacdeen kadib ma iswacdeena maya kabacdi markaan dhalay mar igu dambeysay kabacdina malahan anna waa laysoo qabto dadka tarxiilka lagu soo dara ahaay nambaradiisina meesha iga raaceen meeqa ciyaal u dhashay asiga keligiisa u dhalay ma kaloon dhalaa joogaan asiga keligiisa laakiin u dhalay oo wiilkii aabiis mis ka warqabaanba yah wiilkaagii aabiis mis ogaba mis ka warqabaan war iskama hayaan dadkiisiyaa ka taqaanaa dadkiisii ehelkiis walaa cidaan ka aqaano mala hooyo cidaan ka aqaano mala dile baafiyo waa iska rabi lahaay haddaba lagu baafinoyaaba marka haddii uu ku maqlaayo ama dad yaqaan ay jiraan insha allah weydii bal maxaa dhihi lahayd waxaan dhihi lahaa inay isoo wargeliyaan oo isoo raadsadaan oo kolley wiilkeyga waa aniga xamraan jooga waa laysoo tarxiilay sacuudi carabiyan joogay wiilkeyga halkaasaan ku dhalay yah maxamed cabdiqaadir haddoo imaqlaay maxamed waaba dhalay cabdiqaadir xuseen haddoo imaqlaay waxaan ka codso lahaay inuu isoo baqo fiiriyo loo tasmac kalaami allah yaqaliik waladag mawjuud bas ma ogol shaytaani waa mahadsan tahay gadaal marka baafinta ay socotaan ka ogaaday in hooyo xitaa aysan gacanta ku hayn wiilkaa ka maqan hadda ay sheegayso
aabihiis laakiin ilaahay isku soo dhaweeye waaye isagaa sahlo saqra amuuraha isagaana ka codsanaynaa in ayadana waxay rabto uu sahlo annagana dembi dhaaf uu nooga siiyo caawinta sheergalaynta garab istaagga iyo shaqada u qabanayno adigoo jannada ku jiro iyo anoo kugu dhex arkay intaa wixii dhaafsanna nabadgelyo